markale kulan wanaagsan dhammaantiinba waa barnaamijka qubanaha maanta qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah nin Maraykana oo al-shabaab ka tirsan oo lagu doonayo lacag gaadhaysa 5 milyan oo dollar 10 sano oo ay ka soo wareegtay weerarkii Hotel Shamow oo ay ku dhinteen 30 qof oo isugu jiray arday qalin jabinaysay iyo wasiirro ka tirsanaa dawladda Soomaaliya madaxweynaha Maraykanka oo sheegay in aanu wax luga ku yeelan doonin doorashada ka dhacaysa Britain 12 bishan December aan ku bilownay mas'uuliyiinta federaalka Maraykanka ayaa dib u soo cusboonaysiiyay abaalmarin 5 milyan oo dollar ah oo la siinayo cid kasta oo keenta akhbaar hogaamin karta in la soo xiro muwaadin Maraykan ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab sida ay wariyeen warbaahinta Maraykanka Jihad Serwan Mustafa oo 37 sano jir ah ayaa ah muwaadin Maraykan ah midka ugu darajada sareeya ee hadda ka tirsan urur argagixiso oo shisheeye mas'uuliyiinta FBI-da ee qaybta magaalada San Diego ee gobolka California oo shalay dacwado ku soo oogay Mustafa ayaa ku eedeeyay in uu taageero siiyay kooxda al-shabaab oo Maraykanku u aqoonsan yahay urur argagixiso waxaan rumaysanahay in eedaysanaha uu yahay muwaadin Maraykan ah midka ugu darajada sareeya ee urur argagixiso oo dibadda ah ka garab dagaalama waxaa sidaas yiri xeer ilaaliyaha Maraykanka ee degmada koonfureed ee gobolka California Robert Brewer mas'uuliyiinta ayaa sheegay in ay rumaysan yihiin in Mustafa uu ku sugan yahay koonfurta Soomaaliya isla markaana uu kaalin mug leh ka ciyaarayo qorsheynta howlgallada al-shabaab ee ka dhanka ah dawladda Soomaaliya maanta waxaa 10 sano laga joogaa markii uu qarax ka dhacay Hotel Shamow magaalada Muqdisho xilli ay ka socotay xaflad qalin jabin ah qaraxaasi waxaa ku dhintay in ka badan 30 qof oo ay ku jireen ardaydii qalin jabinaysay wasiirro iyo dhakhaatiir maalintaas December 3 2009 waxay ahayd markii ugu horeysay ee qarax noocaas ah uu ka dhaco Soomaaliya jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa Hotel Shamow ku qabanaysay maalintaasi xaflad qalin jabin ah oo loo sameynayay 60 arday oo dhameystay cilmiga caafimaadka mas'uuliyiinta weerarkaasi ku dhintay ee ka tirsanaa dawladdii Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaa ka mid ahaa Professor Ibrahim Xasan Cadow wasiirkii tacliinta sare Qamar Aadan Cali wasiirkii caafimaadka Axmed Cabdullaahi Waayeel wasiirkii waxbarashada iyadoo dhaawac qaraxaasi uu ka soo gaaray bilo kadibna uu u geeriyooday Saleybaan Colaad Rooble oo ahaa wasiirkii ciyaaraha inkastoo jaamacadda Banaadir ay si weyn u saameysay qaraxii Hotel Shamow ee sanadkii 2009 haddana waxaad moodaa in jaamacaddu ay ka soo kabsatay dhaawacaas waxaana toddobaadkii hore jaamacadda ka qalin jabiyay in ka badan 600 oo arday ah oo ahayd dufcaddii 13aad ee jaamacadda ay soo saartay ilaa sanadkii 2002 maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta naafada adduunka naafada ku nool xeryaha Dadaab ayaa iyagu la nool xaalado adag maadaama ay yihiin naafo isla markaana qaxootinimadu ay u dheer tahay haddaba wariyaheena xeryaha Dadaab Cabdiwali Cabdi Maxamed ayaa warbixinta noo soo diray Kuusa Maxamed Maxamuud waxay ka mid tahay dadka uusan lixaadku u dhamaystirnayn ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab waa naafo labada lugood iyo gacanba waa hooyo haysata 7 caruur ah haddaba hooyo Kuusa ayaa waxaan ka waraystay qaabka ay u nooshahay Kuusa Maxamed Maxamuud balay dhaha waxaan soo qaxay 91 birta dheer Libooyaan ka soo galay 92na waxa la soo dejiyay xeradan xagar dheere aan soo degay caqabado badan baa qaxi igala soo durkay waxaan joognay xaafadda Calanley baan deganaa aabahay waa lagu dilay hooyadayna waa lagu dilay gabadh walaashayna waa laga dilay laba wiil oo walaaladahayna way carareen walaashay iyo ninkeediina waa lagu dilay ka bacdi markaan soo cararay anoo cararaya xabadaha labada lugood ba igaga dhacay waxa i soo qaaday nin cararaya oo caruur hay wata oo kareeta sita ku wata ayaa i soo qaaday kareetadii markay soo saareen waxa la keenay magaalada Doobley la dhaho Doobley markii la keenay waxa la igu wareejiyay ciidamadii waxay i geeyeen dhakhtarkii markii la geeyayna xaafad
baa laygeeyey waxaa lay siiyey kaadh muddo yar markaan caafimaaday oo halkii joogayna dadkii lasoo rarayay ayaa laygu soo taray waxaa lay keenay tuurtuugii xagardheere ilaa intaana xagardheer baan ku noolahay waan ku fiicnahay. marka laga soo tago nolosha hooyadan waxaa jira caqabado u gaar ah curyaaminta Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee Dadaab sida shaqo la'aan iyo midabta koor. horta curyaamada ku nool xeryaha qaxootiga caqabado weyn oo midabta koora haysta waagii hore xitaa waxbarashada nalama siin jirin dadku wayna yeesi jireen waxaana dhihi jiray haddii aad curyaan tahay ilaahay curyaan kaa dhigay maxaad mustaqbalka iskaga ciyaaraysaa ma nin dhintay waxaa jira nin xagardheere curyaano inta dhiig la-aani ku dhacday layii dhiigka loo shubay ma nin dhintay baa dhiig lagu shubaya maxaa nin fayow loogaga qasaarinayaa intii LWF timid wax waan baranaa oo iskoolada meel kasta wax waan ka baranaa laakiin curyaanku markuu dhammeeyo iskoolka lambarka koobaad ee hadduu galo u baaso shaqo lama siiyo wax shaqo la siiyo curyaana ma jiro marka shaqo kasta UN baa u weyn nin curyaana mutacallinaan geysanay way nagu qosleen hayabay dhaheen shaqa la siinaya markaan dareernayna ord gurigaaga iska aad baa layidhi midabta koor weyn baa curyaamada haysta lamana siiyo shaqo. iyadoo maanta caalamka laga xusahayo maalinta dadka uusan lixaadku u dhammaystirnayn ayaa waxay dhanka kale sheegtay in sanadba sanadka uu ka dambeeyo la aqoonsanayo xuquuqda asaasiga ah ee dadka naafada ah. waxaan jeedinayaa maadaama maanta ayaan nala aqoonsaday oo aanu nahay caalamka maanta naloo dabaaldegayo waxaan caalamka ilaahay wax siiyey iyo intii wax taqaana aan codsanayaa fariin u dirayaa inay curyaamada wax u qabtaan oo curyaamada saacideeyaan oo wiilka 20 jirka ah ee gaariga ku socda ee curyaanka ee wax bartay taranka mala'a haddii uu wax barto oo shaqo helo oo naagtu way ogolanaysaa naaguhu waa indha ku garaadda lixaad ka qabaa naag walba shilin bay eegaysaa haddii wax la siiyo waa la guursanayaa in dhalinyarada la siiyo shaqo in gabdhaha shaqo la siiyo in gabdhaha iyo la dhaqaaleeyo la caawiyo curyaamada wax loo qabto markaasaan bulshada wax la qaybsan karnaa. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in ay heshay xog lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan tirada dadka shacabka ah ee ay dishay dowladda Iiraan. hay-adda ayaa sheegtay in dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda Iiraan ee ka socda dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 208 qof. dadkan ayay hay-addu sheegtay in muddo hal toddobaad gudahooda ah dadkaasi lagu dilay. tiradan cusub ayaa ah mid ka badan tiradii hore ee ay hay-addu shaacisay toddobaadkii aynu soo dhaafnay. guddiga sirdoonka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa maanta oo Salaado ah waxa ay bulshada u soo bandhigayaan waxyaabaha uga soo baxay baadhistii ku saabsanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. gudoomiyaha guddi hoosaadka sirdoonka Adam Schiff ayaa u sheegay warbaahinta MSNBC isniintii shalay in guddigu ay qabanqaabadii ugu dambeysay ay ku guda jiraan. sidoo kalena waxa uu sheegay in isla caawa xilliga Mareykanka ay guddidu u codeyn doonto in arrinta loo gudbiyo guddiga cadaaladda taas oo go'aan ka gaadhi doonta in si rasmi ah madaxweynaha loogu oogo xilka qaadista. madaxweynaha Mareykanka oo ku sugan shirka ururka NATO ee ka bilowday magaalada London ayaa warbaahinta u sheegay in aanu wax luga ku yeelan doonin doorashada ka dhacaysa Britain 12 bisha December. Trump ayaa sheegay in ay doorashadaasi xiisaheeda leedahay balse aanu wax shaqo ah ku darsan doonin. Donald Trump ayaa haddana waxa uu sheegay in uu ra'iisul wasaaraha iminka talada haya ee Boris Johnson uu yahay mas'uul shaqadiisa ka adag. waraysi dhawaan laga qaaday Boris Johnson ayuu kaga codsaday in aanu taageerin doorashada oo labada dhinac waa Mareykanka iyo Ingiriiska ay sidaasi u wanaagsan tahay. bishii Oktoobar ayuu Trump ammaan dusha ugala dhacay Johnson halka uu musharaxa la tartamaya ee xisbiga mucaaradkana uu ku sheegay in aanu ku habboonayn in uu noqdo ra'iisul wasaaraha Britain. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in aanu Mareykanku danaynayn hay-adda caafimaad ee dalka Britain. xan ayaa jirta ah in haddii Boris Johnson uu ku guuleysto doorashada Britain
ay hay-addaasi ku dambeyn doonto sharikado gaar loo leeyahay. inta badan ma dhacdo hogaamiyayaasha caalamku in ay faraha la galaan doorashooyinka ka dhacaya dalalka kale. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta waxa uu ku gacan saaray dhaleecaymaha loo jeedinayay heshiis ay la galeen Liibiya oo Ankara u ogolaanaya in ay hesho xuquuqda dhulbadeed baahsan oo sidoo kale ay raadinayeen dalal ay ka mid tahay Greece. heshiiskan oo Turkiga oo 27 November magaalada Istanbul kula saxiixday ra'iisul wasaaraha dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya Fayyad al-Sarraj ayaan weli laga helin faahfaahin buuxda. Ayeshe warbixino warbaahineed qaarkood ayaa sheegaya in uu 3 meelood meel kordhinayo qalfoof badeedka dalka Turkiga una ogolaanayo inay hesho dhul badeed dhawaan la ogaaday in ay ka buuxaan gaas iyo saliid oo dhaca bariga badda Mediterranean-ka. heshiiska ayaa dhul badeedkan u diidaya dalalka Greega, Cyprus iyo Masar oo sidoo kale raadinayay. tani waa xuquuq madax bannaani oo ay leeyihiin Liibiya iyo Turkiga ayuu Erdogan u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan garoonka diyaaradaha magaalada Ankara ka hor inta aanu u anbabixin shirka NATO ee magaalada London ka furmay. Greega ayaa ku hanjabay in ay cayrin doonto safiirka Liibiya haddii aan loo soo gudbin faahfaahinta heshiiska. warbaahinta dalka Turkiga ayaa sheegtay in Ankara ay qaramada midoobay u gudbin doonto aageeda cusub ee dhaqaalaha ee EEZ marka heshiiska uu ansixiyo baarlamaanka dalka Turkiga. intaas waxaa ku eg barnaamijkeena qubanaha maanta anigoo Ridwaan Xaaji ayaan idinla socodsiinaya inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.